dadka gaalkacyoodo muddaan daalanayno dib u dhac aan la kulanno duruuf adag ku raagnay maanta doorashada timid maxaa noo danteena yaan soo dooranaynaa diriiro walaalow daacadaada baartay maanta doorashada taal ee degmadeena lagu qaban daayar baa sharaxan oo dadku ay rabaan oo loo wada durbaan tumay duraanow inoo sheeg daayarka inoo yimid iyo doorka maanta dadku wuxuu u tari karo daayarka sharaxan oo duq magaalo lala rabo dadkuna uu u hanweyn yahay aqoon-yahan weeye daacada musuqiina daashaday inuu maanta dabar jaro ayuu doonayaa dadku uu sinaado deegaankeenu horumaro waana caaqil diintiyo dawladnimo ku xeel dheer oo duq magaalo noqon kara dan yartana wax tari kara waxba yaan ku daalina daaha aan ka qaado dadku hayla maqlaane daayarka sharaxan oo codka doonaya waa aqoon-yahan cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo u tartamaya duqa degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug sida boorkan ku cad xafladda waxaan idin dalbay in aan idin soo gudbiyo damacayga musharaxnimo oo aan ahay musharax u taagan qabashada xilka duqa degmada gaalkacyo 4 sano ee soo socota sababaha igu dhaliyay in aan u soo istaago xilkaas maantay waxaa ka mid ah runtii lambar 1 xog ogaalnimo dhab ah oo aan u leeyahay deegaanka baahiyadiisa guud sida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeyso in magaaladu hesho jidad ay iskaga gooshaan bulshada ku dhaqan sidoo kale adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha korontada iyo amniga oo ah shay ugu baaxad weyn lambar 2 aniga oo aaminsan runtii fursado badan oo deegaankan lagu horumarin karay in laga gaabiyay siday rabtaba ha ku dhacdeen lambar 3 sidoo kale maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah siyaasadana muddo ku soo jiray oo intii 10 sano runtii ka soo shaqaynayay siyaalo kala duwan siyaasadda dhexdeeda waxaan aaminsanahay in aan leeyahay khibrad maamul oo igu filan in aan maanta ku maamulo degmada gaalkacyo inta hoos timaada aan khibrad deegaankayga runtii aan isleeyahay maanta waxaa kaga saari kadhaa marxaladaha intii iga horreysan ay kaga soo shaqaynayeen oo dadaalada badan lagu soo maray aan isleeyahay si dhab ah baa ugu sii horumarin kadhaa baan maantay igu kaliftay ama igu dhalisay inaan u soo istaago musharaxnimada xilka qabashada duqa degmada gaalkacyo ma ahay runtii qof ku taamaya inuu dhaqaale ka sameeyo maamulka uu doonayo inuu ku hogaamiyo taa beddelkeeda waxay tahay inaan u ogolahay isla xisaabtan dhab ah naftadayda marka koowaad sidoo kale inaan u ogolahay cid walba shaqada ay ku habboon tahay inaan gacanta u galsho si joogtaana aan kula xisaabtamo aniguna isla markaas aan diyaar u ahay bulshada degmada gaalkacyo inta hoos timaada inay igula xisaabtamaan mas-uuliyadda aan hogaaminayo ilaahay dartiisu dadaalayo dumarkiyo aniguna waxaan leeyahay maatida message-koodii agoonta message-koodii jidadka gaalkacyo go'an iyo dhiiqada message-koodiiba anaa sida waana ku doorteen taasaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay waxaan hortiina ka cadaynayaa deegaankii uu gudoomiyaha ka ah ayaan tagay cabdiraxmaan sheekh xasan xog badan ayaan ka soo sameeyay assessment badan waxa la iga sheekay igu qasal badnaa waa laga yaabaa in guddigii la shaqeynaa ama deegaankiisii qaar joogo in dadka shaqeynaa guddiga ka mid ah ay barnaamij yar oo kala tuuris ah waxyaabaha fududaynta ah gabar uu dhalay inay ahayd iyo I don't know inay xaaskiisa ma garan karo la yiri kaarkan intaad noo qaadid lacag $20 ku leedahay inta kalena soo celi guddiga iska leh cabdiraxmaan sheekh xasan intuu ogaaday inuu soo celiyay ama meeshaas ay ka dhacdo maxaa gurigayga wax la iiga geeyay cadaaladaas aan rabnaa soo dhawaawaan ku leenahay waxaan rabnaa inaad mudane iyo darane iyo liita kala socdo
waxaana dib u dhiganaynaa xilligii oo soo baxdo haddaad soo baxdo waana kula shaqayn doonaa waana kula xisaabtami doonaa nin jeclays waa dhammaatay yaan layla xisaabtami waa dhammaatay lambarka uu u dheelana waxaan leeyahay nugu filan hanaga daba keenina wax kale maadaama bulshadii kale idin siisay nugu filan aan leeyahay waxaan leeyahay cabdiraxmaan wuxuu mudan yahay in madax laga dhigo wuxuu mudan yahay in la doorto meeshaani waxay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay mustaqbal wanaagsan iyo magac bay u baahan tahay fiican uma baahna maaragtay kana maaragtay garabkayga iyo kanaan jeclahay iyo midna uma baahna annagu maanta waxaan meeshaan u nimid musharaxa cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo ka soo jeeda runtii CV wanaagsan dad maaragtay culamaa udiin ahaa cadli ahaa dalkaani wuxuu u bukaa cadaalad buu u bukaa wax kale uma buko waxaan ku taageersanahay dadka wanaagsan oo ka soo jeedo iyo asagoo cilmi maadiya iyo mid diiniya aan leenahay dadkan waa ku badbaadin karaa runtii waxaan leeyahay cabdiraxmaan soo dhawow waa bulshadaadii iyo deegaankaagii iyo dalkii aad wax u baratay iyo dadkii aad jeclayd inaad hormarisid annaguna waa kugu taageeraynaa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow isbedel loo baahnaa ku soo dhawow dalkan waxaan leenahay sidii aad maaragtay uu tala gashay maaragtay inaad dadkaaga maslaxada u soo istaagto aad tiri waxaan rabaa inaan hormariyo ku soo dhawow aan ku leenahay gacmo furan inta igu fakarkaana waxaan leeyahay si buuxda ila qaata cabdiraxmaan xasan jimcaale qofka haddii la dooranhayo waxaa lagu doortaa sifooyina lagu doortaa waa haddii wax qabad la rabo waa haddii waxtar la rabo waa haddii la rabo mataqaana bulsho in la badbaadiyo la rabo qofka afar walxaataa lagu doortaa afar qodobaa lagu doortaa qodobka koowaad waxa weeye qofku inuu yahay qof waxgal ah cod leh qof cod leh oo qof ummadda wax deeqsiin kara qodobka labaadna waxay tahay inuu yahay qofka cadaalad cadli inuu yahay oo labada qofood mataqaana maanta cadaalad u samaynhayo waxaa kaloo lagu doortaa qofka inuu yahay deeqsi oo maanta waxa yar oo jeebkiisa ku jira qofkii walaalkiisa u arko dhibaataysan siinhaya waxaa kaloo qofka lagu doortaa inuu yahay ehludiin inuu yahay oo qof diinta islaamka yaqaana inuu yahay haddana cilmiga maadiga ee maanta tiknolojiyada yaqaana inuu yahay sifooyinkaas lagu doortaa marka calashaan waxaa ula jeedaa marka cabdiraxmaan intaan ka aqaano nin afartaas ku sifoobay waaye haddaad culamo u taqaaniin haddaa ehludiin u taqaaniin aniguna waxaan caddaynaa inuu aqoon-yahaniinta ka mid yahay cabdiraxmaan ha la doorto anu waxaan leeyahay doorta nin fiican oo dhallinyaraa weeye waa inaad doorataan nin wax soo kordhinaya hadduu aad og tihiin inuu yahay inaad ku dhiirataan weeye inaad tidhahdaan doorta marka waxaan leenahay soo dhowow waa kugu hambalyeynaya guulaysana waa ku leeyahay cabdiraxmaan taariikhdiisa waa laga sheekeeyey dadkii diinta weelka u ahaa oo ka soo jeeday iyo cadaaladda luu yaqiin inuu yahay inuu siyaasi yahay soo shaqeeyey inuu nin dhallinyaraa yahay inuu asagu maaragtay sifigiisii dib u sheegtay waxaasoo dhan marka waxa weeye wax intaani ay maaragtay ku midaysay kuwa kale kula midna waa iman doonaa marka insha allah waxaan ku rajaynaynaa soo dhowow suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado sidaa darteed waxaan si daahfuran idinkaga codsanayaa idinkaga baahanahay taageeradiinna oo baraxla si aan deegaankeenna ugu wada guulaysanno horumarkiisa
aan idiin dardaarmee dadweynow dhammaantiin maanta doorashada taal fursad weeye dahabiya yaan la beerdarayn oo dibna laga shallaayine xildhibaanada deegaanka iyo dadkoo idil matalayow dadkiinniya deegaankaba doorkaan u hiilshow laaluushna daayo inoo doora cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale dunidaa dhaqaaqdiyo daruuraha aan gaarne dalka waxaa u hori shacabkan dayacan dayaalkay rabaan kii la doonay degdeg wuxuu qaban